arrinkii markaa waxaa dhacday inaan sameeyey alxamdulilah horta imtixaankii sidii baan ku galay waa ku guulaystay ICD baa markaa shaqada ka bilaabay oo International Cooperation for Development marka waxaan jeclahay idinla wadaago shaqadaydii ugu horeysay ama may task wixii koobaad ee la ii diray shaqadaasi maxay ahayd waxaa la ii diray gabadhii baa xafiiskaygii bay tustay waxay ku tiri xafiiska waa kan computerkaagii waa kan printerkaagii waa kan kabarka faylasha ku jira adaa iskale waa hawshan ka shaqeyno waxay ku tiri markaa maanta waxaad qabanaysaa ama week inta lagu jiro waxaad qabanaysaa faylasha ku jira kabarkaas waxaad u nidaamisaa sida soo socota kow waxaad mashaariicdii guulaystay ee aanu bixinay marka grantis baan bixinay mashaariic yar oo waxaan NGO-yada ayaa lagu taageeri jiray kuwii guulaystay filing ku samee kuwii guuldaraystayna filing u samee kuwa pending-ka ah ee ay tahay in dib loo eegana filing iyagna u samee shaqadag baa ninkaan garanayo ku adag tahay soo maaha inantii markaa waxaan ku intan baa nin jaamici oo halkaa ka xidhan baan ahayo marka waxaan isleeyahay maxay kuugu dirtay faylashan iyo wax may wax cajiiba ku dirto deetana hawshii baan bilaabay faylashii ay tiri saddexda shaka shaqeen saacado kooban oo 5 saacadood ah marka xoog baan ahay oo waan dhaqaajinayaa ayaan faylashii ku nidaamiyay marka faylal cusub ay keentay oo kaasay tiri Cabdirsaaq faylashii waa kuwan ka shaqeey dhamaystir waan habeeyay waxaan ka fikirayaa inaan report ka diyaariyo faylasha computerkii oo dul baxay oo report baan qoray 1 page iyo badin waxaan filayaa on leeyahay intaasoo file bay ahaayeen intaasoo mashaariic successful way guulaysteen kuwaasi waa dhaceen kuwaasi waa pending maxaa xiga aan diyaariyay faylashii oo deetana aanan rasaynin oo saayooda dulsa u yaala miiskii ay gabadhii soo gashay gabadhii waxay markii soo gashay waan xasuustaa inanta Yvette Lopez baa loo oranay Filibiiniyad bay ahayd bay qaylo ku dhufatay hadda qaylo leedahay Cabdirsaaq waa maxay waxani bal waxaad sawirataan haddaba shaqa aad ku cusubtood maantum saakon bilowday booskaagii intuu ku soo hor istaagay qaylaha ku dhuftaa ku yiraahdo waxaad samaysay waa maxay bal hadda halka isdhiga arinkii waan marka waxa hadii maalinka wuxuu laga qali lahaa qayb kamid ah wadnahayga dhaawacii soo gaadhay ilaa imika lahu ku yaala because simply waxaan isleeyahay armaabada arinkan u noqdaaba shaqadaada kii galaafan lahaayo lagu eri lahaaba ilan CV baan soo qortay hadda xasuusno nin soo shaqeeyo balaayo oo ayaa halkaa igu qoran arinkii way igu adkaaday markay aragtay gabadhaasi runtii aad baan hortay ilaa imika gabadhaasi kamay bixin qalbigayga qof wanaagsan ayaa ahayd una sabab noqotay inaan horumar badan sii sameeyo markay aragtay wajigayga la markaad naxdo wajigaagu wuxuu noqdaa nin madooba koleyska malaha waan cadaaday ma garan karo ma xasuusan karo macnaha sidoo wakaada laakiin iyadu markay aragtay waxay aragtay inaan aad u naxay dabcan deetana hadalkaygii bay ka qoomamaysay markaasay ku tiri Cabdirsaaq it's okay markaa maxaa dhacay ma oran war hadal bay ku soo bixi waayay it's okay Cabdirsaaq show khaladka dhacay wax kale ma baahayne ku dhiibi karaa faylkii waan hayaa faylku waa kan exactly kan oo kale waxa waraaqaha lagu ridayna kuwan oo kale haayeen simple bunchkan waan isticmaalay so bunchkan markaad isticmaalayso xeerar baa jira bunchkan markaad isticmaalayso xeerasha jira waxa weeyaan warqadan markaad doonaysid inaad samaysid inaad faylkan aad ku ridid waxa shardi ah marka koobaad inaad isku miisaanto inaad isku miisaanto deetana aad hesho centerka markaad hesho waxa ku soo baxaya halka macnaha ay warqadaas ku dambal ay ku noqonaysaa laba slaag ay ka noqonaysay bunchkani waxa uu leeyahay meel calaamad kala badh ah oo ku taala gudaha bunchkan taas markaa ay tahay inaad la eegato xariijinta ku soo baxday marka dalooliso marka waxa ku soo baxaya maxay warqad labada dhinac isleegihiin saasaad ugu qoraysaa way noqon weyday
kalaftirkiisaaba qiyaas A4 iyo A5 u diyaarsan yahay waad ku qiyaasan kartaa aniga cabdirasaaq ahaan waxaan kooba ima bilownaba warqada faylka waan soo qaadaa waan galiyaa faylkii markaan ku guray faylka show wuxuu yeeshay faraaqi oo afar xaashadood halkaa ka baxay 8 kilo dhinacan u baxay waxa fool xun oo saa ku soo eegaya ay show inantu ka naxday leedahay waa maxay cabdirasaaq waxaad sameysay marka arinkiiba deetana intan marka aan idin tusay casharkaas ay dhigtay marka the first lesson aan qaato kaasuha waxaan uga dalleen halka tusaalaha idinka siinaya waxa weeyaan shaqada marka jaamacadaad ka baxdo not necessarily inaad everything aad taqaano shaqada rasmigeed ugu tagayso xafiis aad bay uga duwan tahay marka aad buugta wax ka dhiganayso dabcan kuwana lagama helo practical lagama helo meelaha goobaha wax lagu dhigto marka waxaan balyeynaya